Soomaaliya waxay ka mid ahayd wadamadii ugu horeeyay ee heshiisyada saxiixo. Soomaaliya contexteeda markaan fiirino saameynta isbeddelka cimilada ku leeyahay dadka Soomaalida iyo deegaanka Soomaaliya xaguu leeyahay inuu gudbiyo barnaamij INDC la yiraahdo adaptation and mitigation maxay yihiin horta totally climate education waa key to tackle the impact of climate change waan aaminsanahay. INDC-gu wuxuu naga ahaa intention baan la nimid. Ku dhawow podcast aran qayba uma cadarnay oo looga hadlo arrimaha cimilada deegaanka iyo guud ahaan horumarka waara. Tigaan ciwaanka aanu maanta ka hadlayno oo ah runtii ciwaan aad muhiim u ah dalkana muhiim ugu ah dadkana muhiim ugu ah waxaan ku faraxsanahay inaan ahay qofka ka hadli doono insha Allah. Mahadsantahay. Dr. Cabdullaahi waa mahadsantahay. dad badan oo ka shaqeeya eeridan ka hadlayno aad bay ku yaqaanaan laakiin dhageystayaashana guud ayaan rabaa inaan hordhac yar u sameeyo profile-kaaga. Dr. Cabdullaahi Diiriye Khaliif waa aqoonyahan Soomaaliyeed in ka badan muddo 20 sano ka shaqeynaya arrimaha deegaanka hogaaminta iyo food security ama sugnaanta cunnada wax loo yaqaano. Wuxuu ka soo shaqeeyay hay'ado badan oo Soomaaliya iyo kuwa ajnabi ah oo u badan yihiin hay'adaha UN-ka ee Soomaaliya iyo region ka shaqeeya guud ahaan of Africa. wuxuu PhD ka haystaa arrimaha cilmiga beeraha iyo entomology. wuxuu barasare ka soo noqday jaamacado badan ay ka mid tahay jaamacadda Nairobi. waa qoraa cilmi baare luqado badan ku hadlay ka mid tahay luqadda Soomaaliga, Englishka, Sawaaxiliga, Carabiga iyo Talyaaniga. soo dhawaad Cabdullaahi mar kale. waxaan jeclahay inaan u guda galo wada sheekaysigeena. waxaan rabaa inaan marka hore ka bilaabo inaan isla frame gareyno NDC muxuu yahay. waa kelmad ajnabi ah dadka badankood ma yaqaanaan ama si fudud ma fahmayaan. waxaan jeclaan lahayn inaan nooga sheekaysto taariikhda iyo background ku saabsan NDC muxuu yahay. Soomaaliyana maxay muhiim ugu tahay inay NDC yeelato. aad baad u mahadsan tahay Maxamed Okaash. waa su'aal runtii aad muhiim u ah. aanan mar filayay in bal Soomaalida saddexdan eray ee NDC ama letter nationally determined contribution la yiraahdana bal aanu mar u helno waxa uu yahay iyo sidoo ku bilowday iyo qaabka waana saad u sheegtay in badan oo dadka ka mid ah waxa laga yaabaa inay ku yara wareersan yihiin. dunidu waxay soo martay marxalada kala duwan marka ay noqon laga hadlayo global warming ama hawada kululaanaysa ee dunida. hawada kululaanaysa ee duniduna waxay sababtaa inay cimiladu isbedesho. meesha ay ka timaado ereyga la yiraahdo isbedelka cimilada macnaheedu waxa weeye haddii ay hawada ku gadaaman koonkan ay kululaato xaaladii roobabkana way isbedelayaan, xaaladihii abaartuna way isbedelayaan, xaaladihii mataqaanaa ee heerkulkana wuu isbedelayaa. dunidu markii ay aragtay sida ay ku socoto xaaladahaas isbedelayo oo ay yaqiinsadeen waxa ugu muhiimsanaa markaas ciidan dadka westiga la yiraahdo inay badihii kululaanayaan ama dhulalkii barafka ahaa ay melti garoobayaan ayaa markii ugu horeysay 1992 waxa la isla gartay in la sameeyo hay'ad UN ka tirsan lana yiraahdo United Nations Convention on Climate Framework Convention on Climate Change UNFCCC. 1992 bay ahayd. caalamku mar kale ayuu isoo go'aankeeduna ah bal in isbedelka cimilada wax laga qabto. 1997 ayaa waxa la isugu tagay magaalada Kyoto ee dalka Japan ku taalo laguna go'aansaday dunida horumartay ee warshadaha leh sii daaya qiiqa kaarboonka la yiraahdo hawadana kululeeyo in ay wax ka qabtaan oo dhimaan hawadaas kululaanayso ama kaarboontaas ay sii daynayaan wax ka duwan ay la yimaadeen barnaamijkan renewable energy la yiraahdo iyo markuu bilaabmayo way. waxaa xigay 2015 heshiis caalami ah oo caalamka ka dhacay ilaa 193 dal ay saxiixeen intaasoo hay'ado ahna ay saxiixeen oo maanta kor u dhaafay 220 entity ama hay'adood ama dawladood ay isla garteen magaalada Paris. go'aankaas oo loogu yeero Paris Agreement ama heshiiskii Paris isafgaradkii Paris laguna go'aansaday in heerkulka caalamka lagu dhimo because heerkulka caalamku ilaa 4 buu ku sii socdaa meelaha qaar marka aad fiiriso dib loo soo celiyo la dhimo
ilaa la gaarsiiyo 2 degree Celsius ama centigrade hadba siday dadku u yaqaanaan preferablyna ama sida la jecel yahayna in laga dhiga ay noqoto in 1.5 degree Celsius la gaarsiiyo waxaa marka dhacay markii Paris Agreement go'aankaas lagu qaatay in dal walba uu la yimaado commitment ama wax ka go'naan dalkaasi asaga uu sameeyay halkaas ay ka dhalatay marka ereyga la yiraahdo NDC Nationally Determined Contribution ama markaan af Soomaaliga anagu macnayno ay tahay qorshaha qaran ee ka go'naanshaha dhimida heerkulka wadan walba marka waxa lagu go'aankaas uu ku qoray in wadan walba uu la yimaado commitment uu ku dhimayo heerkulka uu adduunku dalkaasi ku daro asaga taasayna Soomaaliya kamid ah Soomaaliya waxay kamid ahayd wadamadii ugu horeeyay ee heshiisyada saxiixo 2015 waan saxiixnay inkastoo April 2016 uu dhaqan galay Soomaaliyana waxay kamid ahayd dalal marka waxa la isku markii go'aankii la qaatay waxa la go'aansaday in dal walba uu soo diyaariyo sida iyo qorshaha uu u dhimayo isbedelkan heerkulkan kululaanaya si looga hortago isbedelka cimilada loolana qabsado damage-ka iyo mataqaana caqabadaha ama cawaaqib xumada ka dhalato isbedelka cimilada Soomaaliya marka dalalkii ugu horeeyay runtii cajiib bay ahayd dal burbursan 2015 inuu gudbiyo barnaamij INDC la yiraahdo Intended Nationally Determined Contribution ama horudhaca qorshaha qaran ee ka hortagga isbedelka cimilada marka Soomaaliya dalalkii ugu horeeyay INDC gudbiyay bay ahayd 2021 ayay misana Soomaaliya dib u eegtay INDC-geedii oo ay magaranaysaa gudbisay NDC 2.0 waxaan hadda ugu yeerno oo ahaa barnaamij weyn oo la diyaariyay laakiin lacag badan caalamka looga codsanayo 55 bilyan ah